السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتم عن وناكسنا خيارت قيمة قايا لك وحرن سان كابل تي في ومركله اي موقال كلا عصب موقال كينا مانتنا waxaan ku qaadaa dhigi doonaa farshaxan yaqaankii rasuul wasaarihii hore Britain Winston fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay waxaan ku codsanaynaa like saarto hana iloow inaad subscribe tiraahdo isla markaana gambaleelka furato si ay ku soo gaaraan macluumaadka iyo warbixinada iyo muuqaalada aan soo gelino hadii aad hore inoola joogtana aad ku mahadsan tahay daawashada ee la socodka muuqaalka xirfadihiisa siyaasadeed iyo waliba team military wax walba waxay ahaayeen mid wax laga baran karo dhinacyada farshaxanka nolosha Winston intii lagu guud jiray dagaalkii koowaad Winston wuxuu ka nastay siyaasadda isaga oo dhowr bilood ku qaatay Faransiiska isagoo ah darajada gaashaan la dhexe ee ciidamada Ingiriiska markii laga dhigay darajada koowaad ee abaanduuliyaha ciidankaas inkastoo uu si dhaqsiyo leh ugu soo laabtay siyaasadda dana soo laabashadaas waxay kasbatay jaceylka noloshiisa iyo waliba hiwaayada uu hayo in uu ku soo laabto siyaasadda iyo waliba farshaxankiisa Winston wuxuu ahaa taariikhyahan farshaxan yaqaan iyo waliba rasuul wasaare wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadka saameynta weyn ku yeeshay taariikhda gaar ahaan wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka digahan jabaadiyaha Hitler muddo dheer ka hor inta uusan dagaalka qarxin halyeenimadiisa siyaasadda iyo waliba xirfadihiisa aftahanimo cajiibka ah waxay sababtay isla markaana kasbatay shacbiyad wuxuuna marnaha rasuul wasaarihii hore ee Britain wuxuuna sidoo kale ku guuleystay in uu abaabulo xoogaga dalkiisa laba jeer si uu uga hortago ciidanka weynaa ee Jarmalka ee quwadda la waqtiga taasoo muuqday in aan marnaba laga adkaan karin ciidamadaas intaas waxaa dheereed in Winston la siiyay abaalmarinta Nobel Peace taasoo ku santanin sanadii markuu ahaa 1953 lixdiisii shaqo taasoo kasbatay dagaalkii labaad ee dunida sidoo kale wuxuu ahaa nin riwaayadaha xamaasadda leh aad u jecel in fikradihiisa ay bilaabmeen markii uu jiray da'da 40 sano sawirada ugu caansan ee Winston intii uu noolaa isla markaana ahaa rasuul wasaarihii hore Ingiriiska ee uu farshaxanka ka sameeyay waxaa la sheegay in ay gaarayaan 550 sawir gaar ahaan waxa ugu caansan sawiradiisa waxaa ka mid ah farshaxankii uu ka sameeyay masaajidka Al-Qutaybiya ee ku yaal Marrakech sanadku markuu ahaa 1943 kadib markii uu ka qayb galay shirkii Casablanca ee uu la yeeshay madaxweynaha Franklin sidoo kale istaraatiijiyadda laga adkaaday Naaziyiinta Jarmalka Winston wuxuu helay madax banaani oo wax ku sawiri karo dhismaha buugaag oo ugu magac daray Marrakech ee Morocco sawir gacmeedka ayaa ahaa kan kaliya ee Winston uu farshaxankiisa cajiibka ah ku rinjiyay intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida kaasi oo socday 1939 ilaa 1945 CNN ayaa tibisay shirka kadib wuxuu sawir gacmeedkii gacanta u geliyay Franklin kaasi oo markii dambe sababtay inay u gudubto dhowr gacmood oo kale ugu dambeyntiina ay keentay in xidiga Hollywoodka Angelian Julius uu ka dhigo mid uu ku iibiyo lacag dhan 2 milyan ilaa 3.4 milyan oo dollar sawir gacmeedka labaad waa lag scan taasi oo ku taala Talyaaniga sawirkan rasuul wasaaraha Ingiriiskii hore wuxuu sawiray isagoo jooga Talyaaniga si uu ugu raaxaysto fasaxiisa kadib markii laga adkaaday doorashadii guud ahaaneed wax yar uun kadib dhamaadkii dunida labaad sida laga soo xigtay National Trust website Winston wuxuu sawiray intii uu ku guda jiray fasaxaas 15 sawir isagoona ku sawiray muddo 20 maalmood oo ay ku jiraan muuqaalada harada Talyaaniga ee Walmar Beach Walmar sidoo kale waa mid ka mid ah farshaxankii ugu caansanaa ee Winston waxaana laga iibiyay Cristiano Acoshan oo dhashay British iyo waliba Irish artist iyadoona lacagta lagu iibiyay sawirka ay tahay 350 milyan oo dollar farshaxanka ayaa muujinaya xeebta aadka u dheer ee u dhow dariiqa Dover ee Britain taasi oo lahayd madfacyo duug ah oo ka haray boqortooyadii hore iyo waliba qalcadihii hore iyadoo laga soo xiganay BBC-da Winston wuxuu necbaa in uu ka tanaasulo wax kasta oo ka mid ah farshaxankiisa balse wuxuu sawirkiisa siiyay General Ismay oo ka mid ahaa taliyaashii militariga ee ugu caansanaa dagaalkii labaad ee dunida kadib markii uu ka balan qaaday mid ka mid ah sawiradiisa in dhowr jeer oo hore uu siin doono isla sawirka quruxda badanna waxaa lagu iibiyay isla markaana lagu xaraashay London lacag dhan 2.8 milyan sawirka 1932 wuxuu matalayay Aquarium taasi oo ku taala gurigiisa oo u dhow koonfurta bariga dalkaas wuxuuna ku sharxay farshaxan ciwaankeedu yahay ornamental taasi oo ahayd
in aysan shaki ku jirin in shaqadiisii hore oo dib ugu soo laabtay 1930kii iyadoo tusaale qaali ku saabsaneed farshaxankiisa heerka sare gaaray. sawirada kale waxaa ka mid ahaa rinjiyeynta iyo biliba farshaxannimada uu ku sawiray xeebta u dhow Cannes taas oo lagu iibiyay lacag dhan $1.1 milyan farshaxanka qalabka guryaha ee Berlin Palace. sidoo kalena iyadan waxaa lagu iibiyay lacag dhan $1.8 milyan. dhimashadiisii kadib dowladda Ingiriiska ayaa ogolaatay in ay qayb ka qaadato sawiradiisa iyadoo lagu bedelayo canshuuraha dhaxalka. kadib dhimashadii 2014kii ee wiilkii u dhalay Wisdom Maris isagoona ahaa wiilkii ugu dambeeyay ee noolaa isla markaana ka haray Wisdom, dowladda Ingiriiska waxay ku dhawaaqday in ay aqbashay qayb ka mid ah sawiradii ra'iisul wasaaraheedii hore taasi oo loogu bedelanayo canshuurta dhaxalka. sawiradaas ee dowladda Ingiriiska qaadatay isla markaana aqbashay ayaa waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan 49.4 milyan tan iyo markii dardaarankii ugu dambeeyay ee uu sameeyay dhimashadiisii. dowladda Ingiriiska waxay go'aansatay in ay ka tagto lacag dhan 37,000 milyan balse waxay ahaan doontaa hantida hay'adaha qaranka ee Ingiriiska sida ay sheegtay isla dowladda Ingiriiska. sawirada dhammaan Wisdom dhammaantood waa la xaraashay waxaana xaraashay wiilkiisa. sawirada la gaday isla markaana la xaraashay waxaa ka mid ah sawiradii uu ka sawiray rinjiyeynta iyo weliba farshaxankiisa masaajidka Al-Kutaybiya ee magaalada Marrakech ee Morocco. waxaa kaloo ka mid ah xeebta Walmar ee Ingiriiska iyo weliba dooxada Bartcones iyo weliba mid ka mid ah sawiradii uu sawiray 1925 taasi oo ah albaabka guriga Bilimian. sidoo kale sawirada la iibiyay waxaa ka mid ah dooxada Oris sidoo kale buuraha Atlas ee Morocco. Wisdom wuxuu aad u jeclaa sawirada farshaxanka iyo weliba qiyamka siyaasadda taasi oo ku dhisan in dowladda Ingiriiska ay noqoto dowlad sare.